رئيس وحن ومهد علينا يا وزيرك وزارة وحبرشدة وزير الدولة وزير كحيان كدمان هو البدنة وزارة وحبرشدة وحن مهد علينا يا قدوميها قبل كبنادر أهنا الضغة مقالة مقدشة وحن مهد علينا يا عيدمة أمنية قرن كصوماليات وحن جوجنا ساكا سكول كشان طبعا كمي أو سكول مقالة مقدشة جارهان ذلك الصومالية عنقوة ولا يقانو halkaas oo aan ku daafurnay imtixaankii sanad dugsiyeedka oo ay u fadhiyaan maantay arday ku dhow 28,000 wadanka badankiis intaas in ka badanna maalmo ka hor ay galeen waxay ka turjumaysaa in sanadkan uu yahay sanadkii ugu badnaa ee arday Soomaaliyeed ay imtixaan u fariisato horumarka uu wadanku ku talaabsanayo waxbarashadu sideedaba waa qayb kamid ah ama qaybta ugu muhiimsan horumarka wadanka in wax la barto waa dib u dhiska qaranka astaamaheeda ama udubdhaxadkeeda imtixaankan loo fadhiyo marka waxaan marka ugu horeysa ilaahay uga baryayaa ardayda u fadhideen ilaa u fududeeyo waxaan aad ugu mahad celinayaa aabayaashii iyo hooyadii ka soo hooyooyinkii ka soo shaqeeyay inay caruurtooda soo gaarsiiyaan halkan annaguna ka dawlad ahaan insha Allah waxaan ku dadaali doonaa si arday walba uu mustaqbalka fursad u heli lahaa hawshan iyada ah marka waxaan uga mahad celinayaa cid walba oo ka soo shaqeysay waa iftiin qarannimo ay ka muuqato Soomaaliyeed waa horumar uu wadankeenu ku talaabsanayo waxayna ahaan doontaa waxyaabaha saldhig waa xukuumaddu inay ka shaqeyso waan idin mahad celinayaa waa mahadsantiin